bismillaahi raxmaani raxiim nabaday daawadayaal kusoo dhawaada warkii telefishinka bulsho oo idinka imanaya xarunta dhexe ee telefishinku ku leeyahay magaalada Hargeysa. Qodobada warka aad ku maqli doontaana waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliland oo safar shaqo oo maalmo qaatay ugu maqnaa wadanka Djibouti ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay. Golaha deegaanka degmada Gabiley oo muddooyinkii u dambeeyay u dhaxeeyay khilaaf ayaa waxay gaadheen heshiis ka kooban 12 qodob. Golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya ayaa wax ka bedel ku sameeyay jadwalka doorashada golaha shacabka. Nin lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay dilkii Sheekh Maxamed Xasan Aadan ayaa la soo taagay maxkamad ku taala dalka Mareykanka. Dowladda Ruushkuna waxa ay xidhay kumanaan qof oo sameynayay banaanbax ay kaga soo horjeedaan duulaanka dalkoodu ku qaaday Ukraine. Madaxweynaha dalka Mareykankuna waxa uu sheegay inaanu dalkiisu ka qayb qaadanayn dagaalka ka dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine. Qodobadaas ayaa kamid ah warkaan idin hayno. Warkana waxa idin la socodsiinayay anigoo Axmed Nuur. Imikii haatanna ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan.